daynta iyo xajka waxay isdiidi karaan haddii lagu haysto daynta oo mathal dayn baa lagu amaahiyey waqtigeediina wuu taagan yahay qofkii baa kula dhaqaaqi kuma xaji kartid kolkaa laakiin haddii qofka daynta ku siiyey oo ku ogol yahay inaad dayn ku xajido waad ku xajiyi karaysaa waxa si aynu ogsoonnay daynay inay culays leedahay islaamku kuguma kalifin oo kuma saarin inaad dayn soo qaadato waad ku xajiyi kartaa iyo waxa kala duwan way kugu waajibaysaa xaj kuguma waajibin oo laguma odhanayo lacag ma haysatid dayn doono ee quraanka ilaahay wuxuu ku xus qofka xajka lagu leeyahay inuu yahay qofka mustatiica ee kari kare awood u la dhaqaale ahaan walillaahi cala annaasi xijjul bayti man istataaca ilayhi sabiila marka haddii aanad dhaqaale ahaan haynin horta kugumaba waajibin xaj laakiin haddaad soo amaahato aad ku xajido dhib ma leh wuu ka ansaxayaa xajki